labaad waxaanu maanta aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii ilaahay mahadii inoogu soo dhamaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay sidaas sheegtay talaabada inagu xigtaa waa doorashadii sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh mudane madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9aad kuna ekayd bisha sanaad 2021ka markuu arkay qodobka 6aad firqadiisa koowaad labaad saddexaad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91/2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 31 bisha shanaad 2021ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreeto 15 casho gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo